gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Yuusuf gobolka Mudug ee Puntland Maxamed Yuusuf bismillahirrahmanirrahim iyo dhammaan shacabweynaha reer Galdogob ee ka soo qayb galay munaasabadan konton iyo 3 guuradii xornimada Soomaaliya ama koodii luuliyo 1960kii guushii ay ummadda Soomaaliyeed gaadhay dhamaantiin waxaan ku salaamayaa marka ugu horeysa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka xigtana waxaan leenahay hambaliyo laakiin waxa isweydiin mudan konton iyo 3 sano ka hor ummad walba oo adduunka ku nool waxay leedahay munaasabad ama waxay leedahay taariikh ay xasuusato oo la iska dhaxlo konton iyo 3 sano ka hor waxa laga yaabaa inteenan meesha fadhida inaan qofna uusan ka jirin waa wax la wada dhaxlay guushaas taariikhda konton iyo 3 sano ka hor ummadda Soomaaliyeed baahida ay u qabtay maxay ahayd isticmaar baa ku soo duulay dalkeedii baa la qabsaday siday ummaduhu u damqadaan ayay u damqadeen siday ummaduhu uga dhiidhiyaan isticmaarka ayay uga dhiidhiyeen waxa ay bilaabeen halgan gobonimo doona oo ay hogaaminayeen asaasayaashii SYL 1943 markii la asaasay 13 dhalinyaro oo Soomaaliyeed ay isu tageen guushaas imisa lagu gaaray 17 sano ayay ku gaareen hadafkoodii oo ay ku xaqiijiyeen konton iyo 3 sano kadib maxaan ku sugannahay maxayse taariikhdu ahayd runtii caawo kale konton iyo 3 sano ka hor koodii luuliyo 6 saac oo hameynimo waa markii taariikhda Soomaaliya ay isbedeshay sareeyo uma nusqaamow kan nasiib kan nasaar bay ahayd markii ay dhacday sidoo yahay eegne marka waxa la taagay calankii buluuga ahaa ee xidigta cadexda ku lahaa ee uu muallifkii alifayna waa Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa dadkii uu soo saaray ardaaga gobolka Mudug degmada Galdoobna agagaarkeedu waa eeriyadii uu ka soo jeeday oo ay soo saaray maanta waxaynu inagu maash halkaan xaq u leenahay inaynu ugu dabaaldeg ka duwan ka Soomaaliya oo dhan adduunka daafihiisa ay ka dabaaldegayso guusha Soomaaliya ay ku gaadhay halkaas waxay ahayd marka xaqiiqada la taabto hal qodob bay ahayd halgankaas waxa lagu gaaray ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka xorowday qabyaalad waxa ay halkaa iska dhigtay inay qabiil isu raacdo inay qabiil isu soo dhawaysato inay qabiil isku raacdo halkaas ayay qabyaalad iska dhigeen waxa ay ka qaateen mabda ka fiican oo Soomaalinimo ayay qaateen waxa halku dhigyadeedii kamid ahaa ab la isku dilaacayo nooma ahay ahyaa wadani qofka Soomaaliga inuu Soomaalinimo qofka ugu heeliyo Soomaalinimo inuu ku jeclaado Soomaalinimo inuu ku difaaco guusha sida degdega mid ay ku gaareen waa midda ayaan daradaena ku dhacday maanta inaynu konton iyo 3 sano kadib meesha aynu maanta naalo Soomaaliya meesha ay maraysa ay arkaysaan in dawladii qabiilkii ay ka tageen dawladda Soomaaliyeed qabiil lagu dhiso 4.5 la yiraahdo reer hebelna intaas uu leeyahay aqliga qofkii Soomaaliya hogaamin lahaa looga baahnaa meesha Soomaalinimo ku hogaamin lahaana inuu noqdo qabyaalad inuu noqdo adduunka daafihiisa waxa ka dhacaya iyo Soomaali waxay ku sugan tahay maanta inay aad iyo aad u kala duwan yihiin adduunka daafihiisa maanta xaflado magac qabiil leh hal asturo magac kale loo bixiyo qabiil laakiin waxa ka hooseeya uu qabiil yahay iyo qabaa'il badan oo Soomaaliyeed oo ku mudaharaadaya inay Jubbaland taageerayaan oo waxa ka hooseeyana ay qabyaalad tahay waa la maldahaya kaliya laakiin maxaa halka ayna dhigay meesha Soomaalina
bixinayo sida la isaga soo horjeedo aqligii dawladnimadu uu sida noqday Soomaali masiirkeedii muxuu noqday waa midii South Africa ka dhacday in wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo gaga bixiyo oo laami la dhigo dhagax lagu dilo Soomaali maciinka Soomaali halkaas ay maraysa waxa ayaan daraa oo taa ka sii daran oo iyaduna dhacday garoonkii diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho garoonkii aadan cadde in wiil Soomaaliyeed oo xoogsanaya nin South Africa u dhashay halkaana waa nagu dileen oo dalkoodii ah dalkeennii intuu yimaado feer naftii inuu uga gooyo wax weydiiyeen inaan la arag sababtoo Soomaali xor maaha ayaan daraka xun lama arko haddii shacabkeena halka uu marayo sida aynu dalkeenina ugu bahdilanahay dalalkii shisheeyana ugu bahdilanahay aqligiina hogaamin lahaana oo qabyaalad uu ku salaysan yahay maxay tahay waxaynu uga dabaaldegnaa kooda luuliya way dhimatay qabri bay gashay qabriga yaal rabaa inay ka soo saaraan 13 Israel aqoonta aynu leenahay ma aysan haysan maalka aynu leenahay ma aysan haysan teknolojiyada aynu haysanay ma aysan haysan laakiin wayna ka qalbi fiicnaayeen wayna ka dadnimo fiicnaayeen wayna ka damiir fiicnaayeen waxay ka damqadeen waxaynan maanta ka damqanayn waxay diideen oo ay aqbali waayeen waxaynu maanta aqbalnay waxaynu aqbalnay inaynu sida u bahdilnaano oo waxa weeyaan madaxweynaha xafiiskiisa uu uga horeeyo nin Afrikaana oo kuwa aynu xornimada gaarsiinay oo markuu qolkiisa seexanayo uu galayna isagu uu geeyo markuu ka soo baxayna isagu uu saaro oo ninkii Soomaaliga aamini waayo xarumaheennii dawladda iyo ciidankeennii iyo meel walbana ajnabi inuu haysto waa mid kalifay ajnabigu inuu wiil Soomaaliyeed nin South Africa u dhashay iyadoo Soomaaliya adduunka daafihiisa ay kaga banaan baxayaan dhibaatada ayayna ku hayaan in dalkeennina uu ku dilo oo uu waliba xor yahay oo magaaladeena caasimadda ay dhex marayo yaa qaban kara dad damiir laba qaban kara damiirka waa ina ka dhintay yaa qaban kara dawlad qarannimo laba qaban kara iyadina meesha aynu ka nalwa aragtaan munaasabadeena waxaynu rabnaa inaynu isbedel intaana la midka ah caawada baaldegaysa aynu isbedel sameeyno aynu damiirkeena bedelno aynu aqligeena bedelno qabyaalada aynu ka xorowno halku dhigiyadii iyo taariikhdii dahabka ahayd ee ay abwaanadii Soomaaliyeed ee 653 sano ka hor ka qayb qaadanayay calanka markii la saarayay caawo kale waxa kamid ah Cabdullaahi Suldaan Timacade waxa kamid ah mirihiisi dugsi mala qabyaaladii waxay dumisamooyee war qabiil aynu iska dayn wuxuu taraya lama arko war qabyaalada aynu iska dayno ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu talagalay inna jacalnaakum isku aqoonsadina reer hebel tahay nasabkaagu reer bani fulaan inuu yahay waa kaliya laakiin qof qabiil wax ku noqdaana ma jiro qof qabiil dartiis ku duloobaana ma jiro qof waxa weeyaan isagu duloobay qabiil fiican oo uu ka dhashay waxba tarimayaan waxaan marka ku gubaaminayaa gaar ahaan dhalinyarada inaynu maanta noolayno halgankii iyo sharaftii ay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo hore nooleeyeen guushii ay soo hoyiyeen oo dawladnimada iyo madax banaanida ahayd inaynu gaarno dariiqa aynu u maraynaana inaynu nafteena wanaajino qof walba inuu naftiisa wanaajiyo qof walba inuu qalbigiisa isbedel ku sameeyo qof walba caawa inuu go'aan ku gaaro munaasabadan darteed inuu qabyaalad ka xoroobo inuu ogaado qabiil wuxuu meesheena dhigay waa meesha aad aragtaan waxa uu sharaf iyo taariikhdii aynu Soomaali lahayd inoo soo jiiday halka ayna gaarsiiyeen waa markii qabyaalad laga tagay munaasabadeena waxay u baahan tahay inaynu isbedel ku sameeyno aqligeena iyo fakarkeena inaynu ku sameeyno inaynu wax walba Soomaalinimada ka hormarino inay inaga caruurteena iyo inteena ka dambaysa ay dhaxlaan dhaxalkii ay dhaxleen aabayaasheen iyo waxa aynu nooleynayna maxay tahay waa xorriyadeena qaaliga ahayd xagee bay ku dambaysay xagee bay u socotay inaynu isweydiino inagu caawa hamigeenu muxuu yahay xagee baa dareenkeenu saaran yahay xagee baynu u soconaa maxaynu ku noolaahay Soomaaliya oo dhan adduunka labadii qaybood ee waqooyiga iyo koonfurtu maanta oo kale waxay ahaayeen markii ay midoobeen oo ay isu yimaadeen oo calan Soomaaliyeed oo xor la wada taagay maanta Soomaaliya inay kala cararayso oo meel walba qolo u socoto qolo walba ay Soomaalinimada ka cararayso qolo walba qoladii kale ay ka cararayso qolo walba ay leedahay qoladaas maanta raaci mayno waa wax aad iyo aad u kala fog maalin midnimo ayay maalintaas ahayd 53 sano maantana waa maalin kala go'aan iyo kala qaybsanaan iyo qabyaalad iyo kala tagsanaan aan wax aqliga ku salaysnayn
dadkaas han Soomaalinimo lahaayeen han qarannimo lahaayeen han dawladnimo Afrikaan oo maanta ciidamo inoo soo dirayna waxa weeye iyaga xorriyad gaarsiiyay waxay ahaayeen waxay ku fakarayaan sidii dalkan Soomaaliya ay taariikh iyo magac ugu sameyn lahaayeen inagu inaynu intii bal maxaynu ka joognaa xagee baynu taaganahay xagee baynu naalaa inaynu iska fiirino maxaynu inagu aaminsanahay maxaynu ku dhaqanaa haweenay waxaan ku khatimayaa Ingiriis ayaa Soomaaliya timid Soomaaliya oo dhan bay madhay Soomaalidu waxay tiri laba ilaah bay leeyihiin ilaah yaro ay rumaysan yihiin iyo ilaah deeqaha haweenkaas dhaqanka Soomaaliyeed bay aragtay waxaan anigu taagnaa magaalada la yiraahdo Boosaaso ninbaa wuxuu yimid niman meel fadhiya oo mid in badan oo kamid ah ay ilaah iyo nabiga wada nacaladayaan wuu fiiriyay qabiilkoodu fiiriyay nacala reer bani fulan ku yaal buu yiri oday 70 jir ah oo la soo booday odaygaas kama damqan markii Allah subhanahu wa ta'ala nacaladay markii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam la nacladayna kama uusan kululaan kama uusan caroon laakiin reer bani fulan oo qabiilkiisa markii la yiri reer hebel nacalad baa ku taala waxa weeyaan ulbu soo qaatay inuu difaaco naagtaas markii Ingiriiska been ma aysan sheegin واقع Soomaalida waxay ku aragtay ayay ka shakeysay waxaan idin ka codsanayaa waaqaca inaynu bedelno taariikh cusub inaynu sameeyno meel walba waxay leedahay yaa joogay maanta dadkii 1960kii dabaaldega sameynayay oo guusha guuray kaalintii ay lahaayeen way qaateen maanta inaga kaalinteena leena ka rabaa inaynu qaadno oo ummadda Soomaaliyeed meesha ay taalayno ka qaadno maalintan iyo munaasabadaana kuwa ina ka dambeeya inayna ka dhaxlaan ama ay u dabaaldargaan sanadkiisa iyadoo marxaladu ama xaaladda maanta ay marayso oo gunnimada oo dulinimada oo qabyaalada oo kala qaybsanaanta oo qurmoonka sidii ay uga bixi lahayd oo marxalad ka qiimo badan mid Soomaalinimo mid wadajir midnimo mid hansara oo horumar iyo wanaag iyo iskaashi ku salaysana sidii ay u gaari lahayn ogaadana qof walba inaga kamid ah xilba saaran xilka saaran qof walba hadii uu guto oo la isu tago waxa weeyaan oo aqligeena iyo awoodeena aynu isu geyno horumarkii ay sameeyeen iyo wanaagii ay sameeyeen dadkiina ka horeeyay waynu gaari karnaa inaynu waxba macna sameyn mayso aynu munaasabad isugu nimaano oo aynu dabaaldeg sameeyno oo hadallo fiican isu soo jeedino laakiin waa macnaha ay munaasabadaan u leedahay dadka munaasabadaan oo kale u dabaaldega oo adduunka ee la midka dawladaha maxaa maalintaas iyo maalinta ay u dabaaldegayaan farqiga u dhaxeeya uu yahay inaga maahane adduunka oo dhan dalalka la gumaystay oo xorriyada gaaray ama maalmaha taariikhiga leh dal xorriyad qaatay oo maalintii uu xorriyada qaadanayay iyo maalinta uu dabaaldegayo ay maalinta uu dabaaldegayo xaaladoodu hooseyso ma jiro inaga mooyee adduunka oo dhan ogaada dawlad walba oo xorriyad qaadatay maalintii ay xorriyada qaadanaysay meeshay taagneed iyo maalinta ay dabaaldegayso ama munaasabadaas nooleynayso oo xusayso meesha ay taagan yihiin waxay horumarsan yihiin waxay wanaagsan yihiin maalinta ay dabaaldega sameynayaan oo munaasabadaas xusayaan inaga markii laga reebo waa adduunka oo dhan inaga meesha waxayna dhigay munaasabadaas wadadeenu ka leexanay munaasabadaas waa ku gaboodfalnay munaasabadaas dadkii u halgamayna halgankii ay sameeyeen wadadii ay mareen wada aan ahayn baynu marnay qof walba inaga kamid ah ku fakar ummad walba maxay ku gaadhay guusha munaasabada ama ciidda xorriyadooda ay leeyihiin maalin walba soo madho ay dabaaldegayaan meeshii ay joogeen inay ka horumarsan yihiin inaguna inaynu ka hooseyno waxayna baday waxa weeyaan oo kaliya wadadii aynu taa ku gaarnay ayaynu ka leexanay waxaan rabnaa inaynaan quusan inaynaan niyad jabin laakiin dhammaanteen inaynu ku dadaalno sidii waajibkeena saaran aynu ku gudan lahayn munaasabadeeda kalena qof walba inaga kamid ah hadduu dadaalo wadan maanta qiimaha leh kowda luuliyo 1960kii meeshii aan taagnayn maanta 2013 meesha ay taagan tahay ay ka liidato kana hooseyso munaasabadeeda xigta qof walba waajibkiisa sidoo u qaadan lahaa inaynu ku dabaaldegno ama ku xusno ama ugu damaashaadno meesha aynu maanta taaganahay meel ka fiican inagoo higsanayno oo ku sugan aad iyo aad baa u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.